بسم الله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله وعام هذا الإلهي ويناي إن أبوري ودغي دين ميسترا أغادي مسلم مبادر ميسان وأهل التقوى وأهل المغفرة إلهي لقبق وصغى مدن الدمداف الوديستاني على صغى مدن مركا حكتو وحنو مهدعنين يا اسمها قود هي بهذا شبله waxaan jeclahay inaan la hadlo ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ee ahlu tawxiidka waxaan soo gaarnay 10 maalmood ee Allah uu ku dhaartay afdalu ayaami dunya ayaamul 10 birito waa maalinkii sagaalaad waanaduna waxay anfacdaa ruuxa muuminka ee adduunyadan inuu safar ka yahay xaqiijiyay doonayo adduunyadana inuu badbaado aakhirana inuu badbaado ayaan rabaa inaan dadkaas la hadlo ilaahay baana yiri wadhakkir waani fa inna adh-dhikra waanadu tanfa'u waxay anfici doontaa almu'miniina mu'miniinta dadka aan rabo inaan la hadlo waa dadkaas dadka ka faa'iideysto fursadaha qaaliga oo ilaahay siiyay iyo jaanisyada waxaa gabagaba ah afdalu ayaami dunya ayaamul 10 sagaalka maalmood soomkoodu wuxuu ka sugan yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam marka koowaad kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yasuumu 9 dhilhijjati wa yawma ashura wa 3 ayaamin min kulli shahrin nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu soomay sagaalka dhilhijj ashurana waa soomiyay bil walbana wuxuu ka soomay 3 maalmood taasi waa taa sagaalkayna maalmood dadkii sagaalka bili soomay waxaan u xaqiijinaynaa oo aan ugu bishaareynaa walwala'aan soomkiinu inuu leeyahay suuq iyo nas maxaa yeelay nabigu sallallahu alayhi wasallam ayuu ka sugan yahay xadiiskana waxaa saxiixiyay albani maalinka sagaalaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa la weydiiyay siyaamu yawmi arafata markaasuu wuxuu yiri faqala inni ahtasibu ala allahi an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da waxaad uu dimidaaf u yahay maalinka sagaalaadka 2 sano ayuu dimidaaf u yahay ruuxa la yimaado markaasuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam waxaan dalbi dimbigii sanadkii horena in lay dhaafo iyo sanadka damba nabigu wax dimbiye ma lahayn salawaatu rabbi wa salaamu alayhi laakiin waxa lagu dhaafaa sanadkii tagay iyo sanadka soo socda ayaa lagu dhaafaa waxyaabaha la sameeyo waxa kamida nabigu sallallahu alayhi wasallam nagu booriyay duca la aqbalo oo maalinka ka qeyr badan ma jirto ghayru du'aa'i ducaau yawmi carafa maalinka carafo maalin ducadayda ka fadli badan ma jirto nabiga noo sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi maalin allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisa oo naar ka xoreeyana oo ka badanna ma jirto maalin allahu rabbulcaalamiin oo arraxmaan raxiim addoommadiisa oo naar ka xoreeya maalin ka badanna ma jirto maa min yawmin أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ما جرت مال كبدا الله جل وعلا أضون أو نار كحرية عرفة مركا أمدا صوماليات أي مسلم كا أي أهل التوحيد كا وحان باقيا إن بريتو لغا فايديستو إن بريها لغا ودا صومو إن إلهي أنقنو qof kasto naga mid ay xumaan ku jira inuu xumaantii banaanka ka istaago ilaahay oo rum sheego allana waa ka toobaq balaya nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam duuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira waxa liibaanay ruuxi diiwaankiisa laga helay istighfar farabadan istighfarta inaan badino rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwab ar-rahim waxyaabaha nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam waxa kamida istighfarta
saxaabadu waxay leeyihiin idaa sallaa salaatan aqbala calayna biwajhihi, suubanuhu sala allahu calayhi wasalama markuu salaadana dushiyo oo salaada naga bixiyo wejigiisii shariifka ahay buuna soo qaabilisiinayay. wayaquul wuxuu dhahayay 3 jeer astaqfiru llah astaqfiru llah astaqfiru llah, macnaheeduna oo yahay ilaahow maanaan gudin xaqaagii, maanaan gudan xaqaagii. idan marka istikfaarta in la badiyo waxyaabaha nabiga sala allahu alay wasalam ka sugan ay ka mid tahay. wuxuu dhihi jiray allahuma inii astaqfiruka wa atuubu ilayka. in ducaa istikfaarta la badiyo, in ilaahay la weyneeyo. takbiirta mudlaqa waxay bilaabataa maalinka sagaalaadka ayay noo bilaabatay suuqyada iyo guryaha. waxaa birito salaada fajar kadib noo bilaabanayso haddii alla doono adkaartii muqayadka ahayd oo salaadaha ciribtooda dhacaysay takbiirta, waxayna ku eg tahay maalinka 13aad salaada casir markaan ka baxno. in adkaarta la badiyo, takbiirta la badiyo. in sha allahu tacaala waxaan rabaa marka inaan wax yar ku daro shuruudda udxiyada. udxiyadu nabigu sal lay slam wuxuu leeyahay idaa ra'aytum hilaala di lxijati wa araada axadukum an yudaxiya falyumsik can shacarihi wa adfaarihi. haddaad aragtaan curashada bisha dilxij wa araada axadukum an yudaxiya, midkiina uu doonayo inuu udxiyaysto, falyumsik ha haysto can shacarihi wa adfaarihi, timihiisa iyo cijyadiisa, cijyaha. shuruud xoolaha lagu udxiyeysanayo waa bahiimatu lancaam, waa geela iyo lo-da iyo riyaha iyo idaha. waxyaabaha kale hadday banaan yihiin laguma udxiyeysan karo. ayakan xoolaha bahiimatu lancaam ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu u sameeyey shuruud geela iyo lo-da iyo riyaha iyo idaha. wuxuu leeyay nabigu sal alayh wasalam 4 laa tajuuzu fi ladaaxi, 4 ma banaano in lagu udxiyeysto. maxay kale yihiin? faqaala markaasuu wuxuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam alcawraau bayinun cawaruha, neefka isha la ay muuqato cawirnimadiisa. wاlmariidatu bayinun maraduha, neefka xanuunsan ay xanuunkiisa uu muuqdo. wاlcarjaau bayinun dalcuha, iyo neefka jiiska iyo neefka buka, neefka buka iyo neefka maaragtay neefka curyaanka iyo neefka cawirka qabo ee indhaha la iyo neefka buko. wاlmariidatu bayinun maraduha, intaba laguma udxiyeysan karo. neefka geela ruuxa rabo inuu ku udxiyeysto waa inuu 5 sano u buuxsantaa, sanadkii 6aadna uu lugta geliya. lo-da iyo idahana waxaa la rabaa inay 2 sano dhamaystaan. waa lo-da iyo riyaha, waa riyaha cadka, iriga cad riyaha. waxaa loo baahan yahay inay dhamaystaan 2 sano. neefka idaha 6 sano 6 bilood hadduu gaaray oo ku ilka dhacsaday, ay dadka xoolo yaqaanka ay fahmaan ay yaqaanaan, waa lagu udxiyeysan karaa. laakiin waa inuu sanad gaaraa neefka idaha. iduhu waa 1 sano, iri cadka iyo lo-dana waa 2 sano, neefka geelkana waa 5 sano. udxiyada shuruudaas bay leedahay. insha allahu tacaala in laga faa'iideysto, dadka muslimiinta ay baahida gaarka qabana la caawiyo, ilaahayna aan u noqono. insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay noo dimi dhaafo. maalinka waa maalin qaaliya, aan ka wada faa'iideysano. waa birito sanadka soomka la soomo waxay u dhigmataa 2 sano. mar labaad bahda shabeelle ayaan u mahad celinayaa. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.